markii aan imid goobtii ayaa wax halka kula kulmay weerar toos ah oo la igu soo qaaday waxaan u arkayay isku daydil oo qorshaysan oo la damacsanaa in aniga la igu qarajiyo وهاجج مسؤول كتير سراكيش سرسرة حسب جودني أيا وير جعن كهذا لك قاضي وريا أيان لمذكر أو وصور رمور باهين MMT في ذلك شرب الكام وير كني أرد عي حبيني مدي حالي طاله حل اللي يسود دياريني مناسبة دسور دوينتا مرشح حمد وحيد كحجان كحسب جودني كوح صحفينا أو كم ذها أيان لي أيا جاري جوبتا كدبنا وحنا عيق عن كهذا وحنا dhaawacyaa ay soo gaadheen wariya ayaan le mudakir oo uga soo warrama telefishinka caalamiga ee MMTV dalka Jarmalka mas'uulka lagu eedeeyay dhaawaca suxufigan ayaa ah Ahmed Salaan Abdi Daahir oo gudoomiyaha labaad ee laanta dalka Jarmalka ee xisbiga wadani hadaba waxaanu khadka telefoonka si toos ah uga hadlaynaa wariya ayaan le mudakir bal sida ay wax u ugu dhaceen iyo dhaawacyada soo gaadhay iyo falkaasi sidii uu dhacay ayaan la soo dhawow maxaa keenay in lagu weeraro xalay fiidkii hotelku ka degan yahay magaalada Bonn waxaan ku kulannay musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani Maxamed Cali waxaanan ka rabay waraysi inaan ka qaado dabadeedna waxa uu gula ballamay goob ay xaflad ku lahaayeen oo xisbiga wadani oo ka dhaceysay magaalada Bonn ee dalkan Jarmalka markii aan imid goobtii ayaa wax halka kula kulmay weerar toos ah oo la igu soo qaaday iguna soo qaadeen mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee dalkan Jarmalka halka gudoomiye ku-xigeenka xisbiga Ahmed Abdisalaan iyo xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga wadani laanta dalka Jarmalka Mustafa Ahmed Cadde waxaan u arkayay isku daydil oo qorshaysan oo la damacsanaa in aniga la igu qarajiyo balse Ilaahay iga badbaadiyay وهاجج أيان لو جود بينتي أديك يوم مسؤول كني بحقوق فرع أيا إذن كده حيسي أو وحرة أيا شري أو أدسو هيسين مجرين هبيراته وخلافة ونقد حيي بس وحن جواب كسوينا مسؤولين تحسب جودني إن أي جواب كبحيان وهاجج أيان لي لامها أمني جاي ذل كشرب الكمال السعودي لا وعاجني يوير كني كسوجاري دعوة مركها دعوة waxaan u gudbinay laamaha ay qusaysay oo hadda gacanta ku haya hadda waxaan ku suganahay isbitaal ku yaala dalkan Jarmalka xaaladayda caafimaadna way wanaagsan tahay walow ay dhaawacyo soo gaadheen balse hadda waan ladanahay alxamdulillah waxaanay dhaawac ku tahay xisbiga wadani waa Mustafa Shifo MMTV ku dhacay shaqadii waan ku soo daalay gaastiina way igu kacsantay maanta iska xabiib وعانة تيلا ودنك السعودي قال لك هنا هي وعانة تيلا الله هو أدي أضف عن كرامتوري نسقة هي